ilmahan ayagoo webiga geeskiisa banooni ku dheelaayo banoonigi kasoo fakaday. banoonigi markuu kasoo fakaday ilmihii banoonigii meel dheer ugu soo dhacay dib usoo noqdeen ilmihii 2 cunug ka mid ah banoonigi inay soo qabtaan isku raaceen. banoonigi markay bacaadka dhinaciisii ay kasoo qabsa isdhahayeen dhulka waxay arkeen gacan bini aadan oo dhulka kasoo jeedo. ilmihii markay gacanta arkeen waa qayliyeen. markay qayliyeen ilmihii kalaa la arkay waa kala ordeen xaafaday gudaha u galeen. dadkii waaweynaay ayay usoo waceen. dadkii markay yimideen ay fiiriyeen gacantan waa la qoday. booliiska ma lasii wacay. markay qodeen ee booliiska yimid oo dhinaceeda kasii qoday waxaa la arkay qof dumar ah oo meed ah oo qoorba lahayn. qofkan meedkan waa dumar laakiin qoor ma leh. subxaan allah. waxaana ku dhinac joogan cunug yar oo mujuq oo hadda la dhalay adiga maalmo dhalan nawaa ku dhinac joogeen oo meed kale ah. subxaan allah. meedka qofka dumarka ahna qoorba ma lehanbo. qofay ku tilmaamo ma layaqaanbo qoorba ma leh. subxaan allah. bal qisadaan oo dhammaystiran aan wada dhegeysanay nakiciya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan idin wadaa qisadii iyo hordhaceedii aan idin soo hormariyey ee ahayd gabadha meedka ahaa la helay oo haddana qoorta lahayn. booliiskii markuu baaray gabadhii waxaa la ogaaday dhakhaatiirtan ay baareen. dhakhaatiir ay leeyihiin dadka meedadka la helo la baaro iyo qofta dhimatoo la baaro sababuhu u dhinto qofkan. waxay sheegeen dhakhaatiirtii in gabadhan horta qoor loo hayno xitaan la sheegi karin. laakiin cunugan yaroo maalmaha dhalan inaysan gabadhan dhalin. gabadhan maysan dhalin. okay, gabadhan iyo cunugan maxaa isku keenaa marka booliiska waa yaabeen. dadka gabdhaha ka maqan oo baadigoowayo ayay wada raadiyeen calaa guriguri u tageen. waxay dhaheen gabadhiin magaceed, gabadhiin ma idinka maqan, see u ekeed, calaamadahee. haddii dadka lasoo wada waxay dhahaan maya gabadheena maahan adiga shan cid ay u tageen. ayagoo yaaban oo meeshan jooga ayaa nin journalist ah waxaa message loogu soo dirayaa. magaceeda waxaa la dhahaa Fariida. waa yaaban yahay. ninka journalistaha oo soo baxay booliiska u keenay wuxuu yiri waxaa ii messagekan waxaa la dhahaa magaceeda Fariida. maxay ahayd Fariidadan waa marka booliiska maskaxdiisa ku shaqeysiyey. wuxuu yiri qofka masku diray waa in la wacaa. haddii la wacay nambarkii wax qabanayo maba lahan booba nambaraan jirinbo. waa la jooga haddana maalmo kadib haddana maxay tol message kala soo dhacay oo dhahaysa cunuga Fariida ma dhalin. cunuga Fariida ku agdugnaa Fariida ma dhalin. booliiska waa shakiyeen. waxay dhaheen qofkan soo diraayo cunugan iyo waxaa la dhahaa Fariida. marka meedka qofka dumarka ah waxaa la dhahaa Fariida madaxeeda waay. marka qofkaana raadiya. qofkii haddana wacay nambarkaa nambar jira maaha. ayagoo la yaaban yahay ayaa maalmaha ka mid ah waxaa dhacday ninka journalistaha xafiiskiisii ayaa waxaa ugu tagtay qof dumar ah. wuu soo dhaweeyey wuu fariisiyey. markaas waxay tiri qofka messageka uu soo qoray 2 goor waa aniga. magaceygana waxaa la dhahaa Narimaan. haye soo dhawow yiri maxaa ku keentay qisadan intayna ka timid dadkan magacood qoftan magaceeda soo sheegtay iyo cunugan noo sheegada wax ogtahay. waxay tiri aniga Fariida saaxiibadeedaan ahaa. weliba saaxiibad waxaan ahay tiri min tafuula yani anagoo yaryar aan saaxiiba ahayn. aniga waalidkay Yurub jiray tiri. kadibna ima soo xasuusan adeerkay aabeel dhashay iyo ayeeday lagatay. ayeeday way dhimatay adeerkayna shil baawur ku dhintay. kadib ayaan Fariidan hooyadeed ma noolo oo hooyo ma haysato. aabaheed ayaan aniga iyada waday heshanayna. Fariida waxaa maalmaha kadib waxaa usoo dhacday maalmaha kamid waxaa usoo dhacday fursad ay ku aadayso Faransa waxbarasho Faransadii aaday. Faransa iyadoo ku maqata aniga xanuunsaday. markaan xanuunsaday aabaheed u wacay. aabaheed markaan u wacay ayaan waxaan iri waa xanuunsanaa adeer isbitaalku u geeyey. markaan kasoo noqonay wuxuu yiri gurigaaga cilada ah ha joogno gurigayga la joog. anna waxaa irmay adeer gurigaygan joogaa. waxaan ka dhigtay qof waalid ah. wuxuu yiri waayay adan kula joogaa. wuu ila joogay habeenada ka mid ah ayuu qolkayga albaabka u laabay intuu ii soo galay ii xoogay anuu hurdo. markuu ii xoogay kadib wuu iga tagay. waxaa igu soo baxay
uurka markaan u sheegin wuxuu iska soo rid iskamaan aan soo ridin waa iska dhaafay ilmihii caloosh way ku weynaadeen kadib haddana foola ay qabatay markii waqtiga dhaliinka la gaaray asaga ayaan wacday isbitaalka u geeyey isbitaalka markuu igu soo celin waxaa yidhi fadlan adaa dhibkan ii geystay guurso wuxuu yidhi waa ku guursanaa marka horta bogso oreyso kadib aan ku guursanaa qof hadda la qalaata maalin soo igu xiraayay anigoo dhalan 15 maalmood ayaa Fariida naga soo dul dhacday Fariida markay timi oo naga gurigooda jooga ayuu xitir maxaa gurigan ku keenay anaa kuu sheega Fariisaar markaan raba inaan u sheego Fariidane waxaa soo ooyay cunugi muujaqahay Fariida soo aragtay bas tiraa aabee gursmiya cunugan u dhashay waxay tiri aabaha ma gursan inuu gursan uu diiday aabaha waa i xoogay saasaa igu dhacday inuu gursan uu diiday cunugan waa kana ayadoo qaylinaysa ayaa soo baxay aabeed hurdo maxaa la qaylinaya yiri qayladii waxay ugu dartay qaylo iyo canaan iyo caay uu adkaysan waa gabadhiisa intuu darbiga madaxa ku dhuftay oo haddana kala tuurista oo kala tuuray ayaa miis dhala ah oo guriga dhexyaal geeskeeda iyo geeska gashatay Fariida dhulkay ku dhacday naf lama tagin way dhimatay wuxuu arkay gabadhiisa inay dhimatay cunugina wali waa ooynaa intuu baxay ayuu cunugina ka taqalusay cunugina waa dilay marka meedka la soo arkay waa Fariida iyo cunugeygii tiri cunugana anigaa dhalay hadda maxaa ku keenay marka hadda waxa ay keenay tiri damiirteedii ayaa isiiweys damiirteedii ayaa i keentay haye Fariida aabaheed aawamag Fariida aabaheed waa dhoofiyey wadanka waa ka fakay waa baxay ma joogo saasay noqotay marka waxay noqotay maadaama Fariida aabaheed hadii la qaba lahaay aan soo sheegin haddii bedelkeeda adaa lagu xiraa ayada ayaa saas lagu xiray Fariida aabaheedna uu ku fakaday subxaanallah allah waa subxaanallah wax walba adduunka waa ka dhacaan ya bal qofka weeladka amalinis iyo weelsanis hadana kugu soo kala fireeya ku xoogluwe har shaydaanka xoog badana oo dadka qaar shaydaanka wada tiro badana a'uudu billahi min shaytaan rajim subxaanallah oo odayga xaasisana oo lagu hay badana xasbi allah wa ni'mal wakiil qisooyinka waa ka yaabinaya qisooyinka qaarkood markaad dhegaysatid waxaan idinka geliyay qof bili aadan nool ha aaminin naftaada la aamin adiga nafsadaada la aaminbo qof bili aadan nool mujida haba isku aamin aku qabanayso bal inta isku xirxiray inta dadka dhibaatada u geysta bal arag subxaanallah qisada maanta intaas ku egtahay insha Allah qisadan qisa la mid ah ilaahay idinkiisa idinkeena ahayn waxaan leeyahay caafimaad cimri dheer cibaado suuban bash barwaaqo inta jiran Allah caafiyo inta awlaad la'aan awlaad baariyo khayr qabto saalix Allah siiyo anagana Allah noo barakeeyo inta dhammaan dhibka Allah ka qaado waxa soo socda Ramadaan ilaahay nabad ha noogu gaarsiiyo caafimaad bash barwaaqo Allah noogu gaarsiiyo cimri dheer cibaado suuban insha Allah Ramadaan ka fadligiis oo fadligeena ahayn kuwii nabad ku soono oo nabad ku afurno Allah naga dhigo dhamaanteenba insha Allah waxaan leeyahay nabaday salaamu calaykum